markale abo markale abo markale abo markale abo markale maridaka kugu muuqda markale abo maridaka kugu mabsuuda markale abo maskaxdaada no muhiime markale abo matal qaranka muwaadiniinta markale abo maridaka kugu muuqda markale abo maridaka kugu mabsuuda markale abo maskaxdaada no muhiime markale matal qaranka muwaadiniinta markale abo adiga no macaan markale adiga no maqan markale anaga aad meel kale abo soo noqo markale maamula noo noqo markale dadkaanu macin markale maantale adi mooye yaa kale awee kuwataan shacabkaaga markale adile dadkaan matal markale ana waan kuu mahadnaqi markale abo markale abo markale abo markale abbehen male eebba male xumaan male oo ceebba male sida abba xasan kuleeto kale waa geesi kale gashaan kale iyo garab kale abbe waxaan kuu sheegi saa u dhow bal magaalada madaxgiisi waa la kooshin saacad badan baa la asaasa laakiin maxaad moodaan yar araajaysanta aad bay u dhiman tahay hadda gabadhii foolato maxaa loola cararaa dhadhaab ama xeryaha qaxootiga ama meesha la yidhahda maleelii meeshaan maanta joogi lahayn maaha markaan runta kuu sheego maxaan rabaa haddii ilaahay ku soo geliyo lambar 1 isbitaal inaad magaalada u dhiso lambarka labaad abaaraa dhaceen 4 macallin baan annaga xagga iskuulka wax siinayna dadweynaha hadda eegan waan tahalilaanahay dadkii ugu guuray xoolihii way carareen abaar baa nala degtay maxaan rabaa xagga waxbarashada aad inaad u eegtaa adoon baan hadda soo gelin macallin iyo 2 inaad noo shaqo gelisaan rabnaa haddii ilaahay lacagtaad naga bixiso waa labada shay ay ugu daran waxqabashada maanta magaalada inkastoo magaalada waxqabashada aan soo koobi karin laakiin labada shay ay ugu daran waay waad soo dhowaani tolkaa ku soo dhowow magaaladaadii ku soo dhowow waan ku qaadnay walaalkaan baa tahay xumaan kuuma qabno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tosha waxaa ku xogaa ugaasiyaad digaale waxaa ku xogaa dhammaan duqayda kulli waan u yeeraynaa ha dulqaataan maanta waxaad ogaataan weliba duqaydii way naga maqan yihiin dhammajalay mitin ka jiraa la jiraa waxaan ku xijinahayaa duqa maxamed qorone soo dhowow Grebo السلام عليكم هو سلانا ومعان باندين كسلام هيا مدنية مروى ودتك ماشا جبيدو والما سنتيني مدنية مروى ودتك ماشا جبيدو والما سنتيني انت وسلان معانا ودنكو سلام هيا وارح معلن waxaa weeyo ku soo wada dhowaada asagoo faarax macallin alla maganataa la isu sheegaynin oo la og yahay 4 nin oo cawliyahan uu lahaa oo qoyskii alla ka qariyo ilaahay uu ka qariyo qayrkii aan gaaraynin 4 nin buu ka baxay 4 nin ee la sheegay ee qoyskii alla ka qariyo aan qayrkii gaaraynin jilibka soo gaaraynin 4 uu ka mid yahay faarax macallin 4 uu isu keenay sababani 4 idiin sheegi ninkii maqlaayeen wuu maqlay ninkaan maqlayninna hadda maqlo 4 waxa weeyo
waa ninka la yidhaaha waynaga horreeyaa inagu wadiya waa deeqsiga sakhaawaha ah een dadka u kala ahayn waa faarax macallin midka labaad waxaa weeyo midka la yidhaahaa waynaga dambeeyaa aan sugno waa geesiga aan wadna lahayn waa geesigii cawlyaan midka saddexaad waa ninka la yidhaaho wuurdaa inoo toosiya waa boqorka caadilka waa caadilka cawlyaan waa caadilkii noo dhashay waa nin door noo dhashay cawlyaan waxaan leeyahay cawlyaan waxaan leeyahay waa nin doorkii noo dhashay waa kan ku dhaaranaynay ani waxaan idin leeyahay cawlyaanow laqdabiya lilaahi isku meel ma galaan haddaa lilaahi u hadlo faarax macallin kuuraha hala siiyo afartaa calaamo aan sheegay yaa lagu siin midka afraad baan idiin sheegin midka afraad waxaa waaye waa culummadaada waa geedkii caadilka ahaa boqorkii ugaaska ay laiskugu imaan jiray ee mood la dhihi jiray wey faarax macallin mood kuuraha hala siiyo waxaa intaa dheer waxa la yidhaaha sagaalka dabac cawlyahan ma jiraan cawlyahan laba unbuu dhalay laba nin ninka ku hadlay cawlyahan buu ahaa waxaan iskaga celinaynay faarax ibraahim buu ahaa bowda dheeriya wax la dhahaya ma ogi waxaan iskaga celinaynay maxamed subayr ninka nuur cuburiye la yidhaaha markuu u yidhi kismaayo lacagtii lagu qaybsanayay uu yidhi shanta daba maxamed subayr iyo labada cawlyahan noogu soo qaybiya faarax ibraahim oo tuurcadda faarax bowda dheereer yidhaha yidhi shantaa sheegtay sagaalka cawlyahan noogu soo qaybi waxaa la iskaga celinahayey cadowgaa la iskaga celinahayay ciddaa lagu kala qaybiya malahay cawlaha waa midkoo boqorku waa midkoo faarax waa intaan sheegay wuu ka midaysan yahay anu waxaan jiraa 88 baan jiraa waan dhawaaday kutub baan leeyahay waan cabsanayaa cabsi ilaahay ilaa cabsi bini aadan ma cabsanayo khayrowna waa walaalkaana wiilkii dhashaba anuu ii dhashay ninkii yidhi baan ahay waxaa yeelay arooska hooyadii baan cunay kolkuu dhashaan naallihiisa cunay kolkuu sahmiyey baan alla magana tahay saankiisu ku guuray waxaa la yidhi wiil iyo waalay reerkaba ha u maqnaadaan wiilku beledka ha ugu maqnaado waalaygu ama dhaan iyo safar ha ugu maqnaado wiilasha cawlyahan waa isku mid ilaa way kale waxgalla dheer yihiin faarax mood kuuraha la siiya cawlyahan waa ninkii loo dhiban lahaa waa ninkii nala dhashay waan ku dhaarani oo taa been ma aha ku soo dhowaada hadalka waan idinka bixi assalaamu calaykum wabarakaatuh waxaan codsanayaa dadka gudaha soo galayaan dadkan hasixina ninkanay shaqadiisa tahay ruuxa meesha u jeedsan marada laga bedeli ninkanay shaqadiisa tahay gudaha ha soo gelin naga fariista waa mahadsantihiin waxaan soo dhowaynayaa oo ku xigo maxamed qorane waxaa ku xigo maxamed jaalle yarow ku soo dhowow waa nin raabkaaba reefi qududube ku soo dhowow maxamed jaalle u sacabiya maxamed jaalle u sacabiya ninkan aad aragtaan waa uu gaaban yahay gaabnidiisii iyo maskaxda ku jirta isma laha maskaxda ku jirta iyo gaabnidiisa isma laha soo dhoweey ha loo sacabeeyo maxamedow hadal ku soo dhowow assalaamu calaykum waan gaabanahay waana cod dheerahay codkiina aad u dheereeyaan isku dayi waa salaamantiin dhammaan salaan kadib magacayga horey baa loo sheegay maxamed jeelle yarow waxaan ahay reer madaxgisi way hadashay waxay ka hadashay waa wax muhiima wax yar baan ku daray aniga wax yar oo gaban baan ku daray dhammaantiin waan idin salaamayaa faarax macallin toosha waa salaamantihiin salaan kadib muhiimaddii madaxgisi ay lahayd odayaasha madaxgisi baa ka hadleen aniga waa un kabi raba waxaan ku kabahayaa madaxgisi baahideeda way iska fara badan tahay waa lama soo koobi karo laakiin waa la tataabtay waxaan rabaa aniga mid guud inaan ka hadlo oo cawlyahan maarta ay dhexdiisa taallo cawlyahan waa midkoo laba ma aha hal mida waaye hal deegaana waaye hal qabiila waaye ma kala qaybsano wiilasha cawlyahan way tartamahayaan
midkii noo soo galo waa toosha kaasaan qaadaynaa maanta waxaa nala jooga faarax waxaan leenahay toosha ugubna ma aha faarax ugub ma aha hore buu xilku soo maray faa'iido moogi khasaarana kumaana arkin khasaaro kumaana arkin waxaan aaminsannahay maantana kuma arki doonno khasaaro waan filaynaa faarax haddii wiil cusub noo soo galo allahu aclam wuxuu la imaan doono laakiin faarax waxaan aaminsannahay fikirkii uu nagu soo maamulay ee hore mid ka wanaagsan ka waaye aragsan inuu la imaan doono waxaan kaloo aaminsanahay faarax ninka la yidhaahda walaalkaa waxa uu yahay waa lagu faanaa faarax waxaa laga yaqaannaa geeska afrika yaa laga yaqaannaa annaguna naga dhashay waan ku faanaynaa faarax waan ku faanaynaa cawliyahan baana ku faani soomaaliyadaana ku faantay waan kaga dayanaynaa annagana hadday soomaali ku faantay annagii uu naga dhashay maxaa nagu faani weyne halyey buu yahay faarax kulan iyo madaxgiisi isku mid waaye waa magaaladaadii faarax waxaan leenahay magaaladeedaa joogtaa maanta magaalo marti kuma tiid ku soo dhowow intaas waa intaas inta kale taas waa guubaaba guud cawliyahan waxaan leenahay yaan la guuxin khayrow iyo faarax waa labadii wiiloo cawliyahane kii noo roon baan dooranaynaa kii ilaahay u nasiibana wuu soo geli aniga waxaan ahay nin reer afkaabe oo cawliyahane oo reer fuqdudube faarax iyo khayrow waa laba wiiloo cawliyahane aniga waxaan xasuustaa faarax ninka la yidhaahdo inuu maartaa ay geeska afrika lagaga faano oo halyey uga yahay oo laga yaqaanno intaas waad garatay marmaleen intaas kadib aan u soo gudubno waxa madaxgiisi ka jiro madaxgiisi waad aragtaa maanta way kuu soo baxday codkana way ku siisay insha allahu tacaala waxaan aaminsanahay inaad ku soo bixi doonto waxaan kaloo codsanaynaa oon madaxgiisi baan u hadlayaa codka madaxgiisi baan ku hadlayaa madaxgiisi haddaan nahay waxaa jirtaa caqabado madaxgiisi ay ka sheegtaan caqabadaha ay ka sheegtaan waxaa ka mid ah annaga 5 sanoba waxaan doorannaa qof markuu kuulaha dhacana wuu naga tagaa waxaa dhacdaa inuusan dib noogu soo noqonin baa dhacdaa waa la isweydiiyaa su'aasha tuulooyinka way isweydiiyaan waxaan codsanaynaa faarax magaaladan dib inoogu soo noqdo asagoo xildhibaana uuna ka qodbeeyo waxaan kaloo codsanayaa xoogaa annaga tuulada markaan degannahay waxaa jirtaa dadka walaalaheen ee gaaris intay dhadhaab u sugayso degan xoogaa gacan bidixeen aan ka sheegannaa waxaa ka mid ah maalintii kursiga uu soo galay xildhibaanka waxbaa la raadsadaa waxbaa loo yara ordaa dadka xoogaa hanguriga iska jiraa waxaan maarta ay ka cabannaa dadka dhadhaab u sokayso ee gaarisi iyo nairobi degan ee walaalladeene xoogaa inay nooga galaan galbadan yihiin xagga siyaasadda iyo nimanka maarta kursiga aan geynay sidaa awgeed inay noo imaadaan ayagoo kontarotiyo yeer wato ayagoo maarta ceelasha duraayo ayagoo maarta xoogaa wata inay noo imaadaan annaguna sidaas awgeed ay caqabad nugu tahay waxaan codsanayaa oo haddaan ku hadlayo codka madaxgiisi mushumuwa faarax inuu taas noogu hiiliyo aan codsanayaa oo garab nagu siiyo waxaan kaloo codsanayaa mushumuwa faarax waad imaqlaysiin balmayn reer madaxgiisi magaaladan waxay degan tahay 21 sano sidaan aaminsanahay 21 sano isbitaal ma laha isbitaalka haddii ilaahay ku soo geliyo inaad soo gashaan aaminsannahay inaan waxaan rabaa sida ugu dhaqsiba noo dhammaystirto waxaan kaloo codsanaynaa iskuulka waxaa ka hadlay ogaaska wuu ka hadlay baahida ka jirta kuma sii noqomayay magaaladan ma jiro network ma laha maadaama aan ognahay inay shirkad ganacsi ku shaqo leedahay waxaan codsanayaa inuu maaragtay noogu hiliyo oo shirkadda maaragtay ganacsiga safaricom ku shaqo leh codsi uu nooga geeyo si aan u helno network aan ku xiriirno waxaan kaloo codsanayaa maanta dadka maarta ay dhaliilo badan baa iska jiro dadka siyaasadda faarax dhaliilo maarta ay ku dhaliilayo inuusan maarta wax qaban doonin inuu cawliyahan kala xigsanaayo wax muuqda inuu tuso bari markuu soo galo wax muuqda aan ku faanay inuu tuso waa salaamantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu okay doosha waxaan ku soo dhaweynayaa gabdhaha waan u soo noqon doonaa waan u wici doonaa hadduu ilaahay yidhaaho raggaan dhammeynay horta marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa duqa maxamuud loxos soo dhowow aw duqan wawey waaye waa nin reer saalaxe soo dhowow
akhyaarta noo imaatay assalaamu calaykum soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada faarax juu horta faarax juu faarax juu faarax juu waxaa weeye dadkan horta annagu reer madaxgisi baan nahay ilaahay kuma naareen nin reer saalaxana waa nahay kow waxaa weeye hadal waa isla dhiisi waxaa la yidhi isla qabis haddaan reer madaxgisi aan nahay hadalka rag baa iga horreeyey odayaal ah intii ay sheegeen wixii magaalada ama baahideeda ama dhibkeeda ay sheegeen way idiin sheegeen inta kale faarax subal baraar oo maaka laba jir mooho shalay ma dhalan taariikhiyihiisa waan haynaa fadleyda hataa kolay way ogta taariikhiisa waxaa la yidhi hebel niman baa show niman facaad u doorteen intii ilaahay kuwa naare ay dhib la kulmeen markaasaa waxay dhaheen hebel ninka la yidhaah macnaha facaad ma garan waayo waxbana ma garan waayo haye ku doqono in adeerkii oo laandheeraanba talada ka xogay yaa ka xogay hadda waxaa weeye faarax dawaara cawliyahan sagaalkiisada wuu og yahay nooc kaloo loo dayabo uu dhammaatiran yahay waa ninka ugu weyn ee ugu qiimo badan nooc kastoo loo dayabo waan soo dhowaynaynaa annagoon far loo laabninoo lilaahi qabno ilaahay nagu og yahay waan soo dhowaynaynaa waxaanse waxaan ii sheegi been iyo ballanfurba siday kuu galaan lama gartaa li waxay ila tahay aska ilaalino wax la yidhaha ballanfur wax ballanfur ilaa aska ilaalino lilaahi iyo laqdabasku meel ma wada galaan waa iga daacad oo far iima laabno oo ilaahay baa igu og faarax waan soo dhowaynaynaa waan dooranaynaa waa haleega annagi waa geesaga annagi waa boqorka annagi waa baarqabka annagi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamuud loxos fariiso okay waxaan ku xujinahayaa maxamuud loxos xagga maamooyinkaan u soo jeesanahay duqeyda waan ku soo noqonayaa qaarkood weli way dhiman yihiin aadan samaan soo dhowow dadka raallahaada waan soo noqonayaa assalaamu calaykum martida sharafta le noo imaatay iyo duqeyda iyo gabdhaha iyo maamooyinka magaalada kulli waan salaamayaa salaam bacdigeed wixii aan ku hadlaynayn ugaasyadii iyo odayaasha caqiilintaa iyo waxay hambeeyeen ma laha intaa waxaan ku darahayaa magaalada madaxgisi cawlyahan baa degan ree afgaa baa u badan cawlyahan aana khayr wula degan yihi waxaa leeyahay dhallaan iyo dhurwaa dhexdooda war xun baa la wadwadaa haddaan runta laisku sheeginne waxba ma hagaagahay dhallaan iyo dhurwaa dhexdooda war xun baa la wadaa iyo soomaali kuma maahdo waxba ma kala qarsanayn cawlyahanna waa midko ragga horaa ka hadla waxaan idiin sheegi dad inay wax kaabeengaraystaan oo wax hagaajistaan rabo oo faarax inay dulmiyaan rabaan baa waxay dhahayaan faarax hadduu soo galo ree afgaa buu guuri wax buu hadlayn ma maqlaysaa waxaase waxba kama jiro nin keetii soo galo faarax ka fiicanna nama soo marin ma maqlaysaa hadal nin baan run ka sheen been baa u kaysa aniga nin ree afgaabe oo ree caafi ee warsamo geedo ree caafi abaan oo ree maxmed boosey beenne run iyo ilkaa walacdaa bee waxaa mataraysa hunnuhunnu hadal ma aha hambiriisina oodin ma aha faarax macalin waa halyayga cowlyahan hal nin oo cowlyahanoo la doortoo ka qiimo badanna nama soo marin waxaa soo raacay asaga waxaa soo raacay inta la soo dooranayay imbiiga hadda labada jeer noogu jira yaa soo raacay wax qabad faarax macalin ku soo raaca doctor daahiyaa jira wixii hadda noo dambeeya wuxuu noqon doona ilahay bay u taallaa wixii hadda noo dambeeya ilaahay bay u taallaa laakiin wixii aan soo aragnay doctor daahiya oo soomaali weyn oo ilka baandho u gooyey waddankana biyo u sameeyey yaa soo raacay faarax macalin baahida hadda aan sheeganayn wax hadda hadduu daboolin inuu soo dhowey laga yaaba faarax macalin baa jira
faarax hal baan leeyahay horta reer madaxgiis hal baan leeyahay waxa lidin sheegay waa been nin inuu wax ka been garaysto oo faarax inuu wax ka dulmista rabo yaa inta ayada ku hadli waxa waxba kama jiro faarax maxamed macalin waa walaalkeen khayrow iyo faaraxna cudur iskuma qabaan shalay markaan aan xalfadda joogno garabkiisa isku haysteen annagu baa isku keen duleen oo been naloo sheegi moogi waxba kama jiro wax la sheegay inta reer madaxgiis baan leeyahay reer afgaab faarax macalin hal baan leeyahay wixii horta wax looga sheegay ma wax garad wax looma sheegay wax looga sheegay asaga ma laha waa nin waaya arag laakiin waxaan ka codsanay intii kala duqeyda dhameeyay baahida magaaladan asaga arkay warkan isku jaban isku silacsan warkan ilaa yaanja ilaa xuduudka isku xidhan ee halka MCA ka soo galay inuu noo kala gooyaan ka codsanayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh okay waxaan ku xijinayaa madaxgiisi way faraxsan tahay maanta waxyaalo badan baa muxushma ayay ka hadlaysaa inaad u qabataan rabaa haddii ilaahay yidhaa codkay anigu uu dhiman yahay daadihiyaan ahay waan ka faa'iidaysanayaa intaan aan ku dhex jiro aan daadihinayo waxaan ku soo dhawaynaya maxamed daahiye waa nin reer afgaabe oo reer warsame oo reer caafi ah maxamed daahiye welcome mar kale maamulana noqo mar kale dadka dhammaan martida noo imaatay ee sharafta leh mudanaha noo imaaday faarax macalin iyo dhammaan dadweynaha madaxgiisi dhammaantiin waan salaamahayaa assalaamu calaykum waxaan magacayga maxamed daahiye dhaqanaa la dhahaa waxaan hadda ka hadlahayo horta maba garanayo oo rag waxaa la yidhi nin kaa hadal badan dhaxalka adoogaa buu kaa qadiyaa wixii aniga aan ka hadli lahaa rag baa dhammaystay rag baa hadday baahi isku lahayd haddii haddaan alla kuu diidinay baahi ay ahayd wixii oo dhan dad baa dhammaystay laakiin in yar baan kaga noqonayaa kuwii iskuulka hadda dhiganhayaan walaa xawla wixiru walaxa ku jiro kuwii ka baaseen ee haddaan alla kuu diidinay secondary aadeen yaan annaga hadda meelan geynay aan garan la'ah secondary aadeen ee primary ka baxeen yaaban meelan geynay allaana kii jaamacad rabo marka kii secondary rabo meel loo leeyahay kii jaamacad rabo horta goormeen meel geenaynaa mudanayaasha marka waan doorannaa oo everyday kuuraha waan siinaa oo codkaannadu waan siinaa laakiin nin dib noocanaha noo soo xasuusto waan kala anahay hadhowta ma ogi darad unbay iska galahayaan meel loo maraba ma arki maysid ninka adiga shalay aad ku jajabaysay soo dooran lagu lahaa berita sanduuqun baa la gelin meelaa ilin aad u marta ma helaysid annagu hadda ilmahanada meel kaloon geyna markaan weyne waxay ka akhristaan qaxootiga yaa secondary u aadin qaxootiga ka wada akhristaan annaga qaxooti baan hadda meeshan qaxooti baa soo waa meel deegaan ilmahanada waxay secondary ka dhigtaan qaxootiga ma garan hadduu aabba leeyahay iyo haddii uu aabba la'aan yahayba maxaa yeelay aabbuhu hadduu tabar uu ilmihiisa meel ku geeyaba uu soo yidhi oo yulufunka uu isu gedi karin muxuu ku samayn marka waxaan markaa ka codsanaynaa annagu horta faarax macalin waan qaadnay waxaa la yidhi kol hore waxaa la yidhi ama ugub gado ama aqoon gado faarax macalin macnaha waa curad weeye ma ogi ugub ma aha mar buu dhalay mar labaad buu dhalay waana intaa adduunka ma soo joogno meeshan baan joogno meeshan annaga annagoo geljiraaba la dhihi jiray gaalaka huraha ridi oo faarax macalin aan kugu ridno inta soo degnay lama rabe inta soo degnayna xil wuu noo qabtay wuxuu magaaladan u qabtayna horaa looga sheegay iskuulka annaga hadduu secondary boardingku asaga u dhisay hadda weli lama furo macallimiintaasaa xataa wax lagu macnaha kale oo la taartay ma uu laha 8 galaas uu noo dhisay baana meesha ka tagana wax kale oo lagu soo daray ma uu laha ceelkii uu noo qoday midka noo qodana wax kale oo hadda wixii oo noo mid hadda weelbaag ay soo raacin baa oo meesha ka qoda marka warre madaxkiisu faarax macalin hadda alla ku diiday wax galadiisa waan ognahay laakiin waxaan rabnaa faarax macalin ma qaadeen faarax macalin ma qaadeen duu faarax macalin ma qaadeen toosa warka waa ka baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh okay waxaan soo dhawaynayaa garaad jeraar cuncun soo dhawow baaba بسم الله الرحمن الرحيم كلك الله وحريه
آخر يد ملا ونا عذاب إلى وعيبنا أستر ماشى ورك دون بشر الله نقول أنا كل كأن الله فري بود الله نوكر ديري غيرتنا الله أستر أبي أنكر الله قاض أبي أنكر الله قاض صاحب الله كدقو والذي كذا الله كدقو بدوام بدوارا ودورني هربان دورني أنا وحنا هاي جراد جرار عيان بان هاي عيان مكلا بحيو أفكار بان هاي مدة هايو فقدي بان هاي مدة هايو دوارا هربان دورني يقول معها جلجيت بالجبال كابل جلجيت بالجبال كابل دوارا معها جاودي سيجد لغو مال لغو جلقو الكتوبة كلا تلقى دجال لقى تابيو توبنية تابلو توكلو تيجي توكلو تيجي تاجروا ومكاتري العدي سي عصر وعراب عيشي سي عدي تجي عالم مالية وكل يارك نقومونيا نقروشة نقومونيا نقروشة دم وعبور ودورني ما تدورته جلجيت بجيت جحي جلجيت بجيت كجحي دوارا بلا كل جلجو أفر جرد لا أبسمد لا لا منو كسك الموت هلا بيجي ربع بيله هوية لا بيله هوية دوارا هربان دورني ونو دداري هربان دورن ونو دداري أنا وعبي هنقاربان كاها سكر سيسري بايا لا تبجري صاد مقابر قبي نكاسي لو مالها إليها وعلمه نكاسي لو مالها هادو نكاهرو وقاعدين وقاعدين بلده هي وقاعدين وقاعدين لا عيولها صدحني ما فلحد وا دوارا وفلحد المعان وتفح المعان وفلحد المعانكم من درين المعانكم من درين فلحد بوها دير بوق يسوي القوقيوها وحاد يا لسان صدح هديك وقال ما قريتي دبك كان دونتا بيا هديك وقال كل ورقه دبك كان دونتا بيدار هديك وقشا دبك كان دونتا سير هداك قشا قلت كان دونتا دوار ما تقوان هلا دورت اوكي دقاس خير الله سيو wuxuu noo sheegay inuu cawliyahan uu yahay dadkan yaryar ee maartay aniga iga sii yaryar unbaa cawliyahan kala bixin ma ogi duqeydii hore uu weynaa cawliyahan inuu midkoo yahay way garanahayaan marka sidaa ogaada dadka maartay yaryarka oo waxaan ku soo dhaweynay away maxamed saal aw hamba kaale soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيوه سود دواده فارح معلم سود له فارح معلم جو ما حان كلا هاي أنا مقعد محمد سهل فارح دقوا باليرادا هم بانا واليغانا أنا محان في محكيش توهر ما تو على كوريا هاي طول الدقيقة عصوان بانا هاي التوفيق ليراد ما قرأت قربة طول عصوان أو التوفيق ليراد أنا ويان دقنا في محكيش لوان كتير سنة فارح معلن وحبلان بهرت سوي إنه أولين وموس إيمانه وفارح معلن أول جد كانوا بوس كبر مرهي محل يقول لنا شيء بين بقى أوكيسن أنا وده نكى ماركتا أي هدي دان كاله إنه كوي معه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله نكاس بان هاي عليهم بان هاي إنه يراهرت وقرهمنا نكالوهم بليلي إنه تاجنينا أسوها هرت فارح معلنها كسر دوّده لقمان نعبو هي أفكاركم من نعبو والله قاضي أنا هذا كهر كل تنجارك ساعة أديكوا جارس جوا كورة هذا يانجارس يانكريده سما هذا كرن هذا أديكوا ماشي جوا إيران كورة هذا الكورة أنا وقارن كلام مريانو ما مرين هاي سما هذا كرن أرتو فارح معلن هسود دوّده لا بوناكسن يوجي بوناكسن هكسود دوّده أنت كبعدين أنا تقول أنا وصلت هاي إنا هدي واحد نوع قبضته والكل إيش إليه هاي أركته أنا وقت وقفنا سواء أركنا وأتفقد بس العصام بنوسرن الكي بيان بالقيس يداي در ملها بركد ملها هامتي بيان وش بهي ملها بيقول بس كلا صعدان مدوا مدة عيره
horta aragtideedii iyo waxqabadkeedii yaa la ku hiran yahay ee wixii aad nooga qaban lahayd aday kula jirtaa marka si ayadaas ku soo dhowow laguma necdo marka maxaad ahaataa annaga maya liga qaadi mahayo ligama qaadahayo maxaa liga qaadahaya codkeedu wuu furaya walaal faarax macallin soo dhowow juu faarax macallin juu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي دقاس وحو دقن يا محشمة تقول له توفيق إن مرتو أو تكتو أو كقد بديسو أو حقبت كذا أو قبته أيوب بهين أصلا كل حماها دقا رشيدة ودقي ذي كسو هربحين محشمة ماشي يسمى الحكيسين أي كسو فايستان أي ربين. أوكي وكسي قد بهيا قبل أن نكون رجينا هيا وحسود وين هيا حبيب عبدي ويلكم ماما سودو وصاحبي يا ماما صاحبي صور عبي عشان كلي يجرب كلي سيدو كلي كلي سيدا كلي مدحوها نقدانا كلي رجب يجي السلام عليك خيارتا أهل الدين عامة مدحدا نوي ماتي walaalkay faarax uu ku jiro saqiir la oo kabiir leh salaam waxadigeed annagu haween baan nahay socodka annagu wuu iska gaaban yahay aragtida annagu way iska gaaban tahay wax dhinka annagu wuu iska gaaban yahay wax galka annagu wuu gaaban yahay sababtoo hooyadii iyo aabbihiina dhashaan subax calalada u siibayna meel ay noogu hagaaban bay garan waayahayaan wiildada waan ku wareegaynaa kaan baabadnada taliyaha annaga guud ahoon ogaansanoo soo dhowrayna xaggiisa markay sidaa ay tahay annaka faarax macallin abgaabka meeshan ee madaxgisi juu maxaad ka dhahdeen juu maxaad dhahdeen faarax macallin waa la qaaday allah qaaday maxaad dhahdeen saqiir baa qaaday oo kabiir baa qaaday maxaad dhahdeen culimaa qaaday oo caamaa qaaday maxaad dhahdeen intaa markaan ka soo gudbo walaalkay faarax macallin aqoon aan isku hor istaagno waa indha korkor waan ka arkay laakiin asaga ilmo lahayn dadka meeshan joogo maxamed xamuud cabdi xamuud yaa iska garanaynaa ma garanaysaan markay sidaa ay tahay loodaannada iyo looda faarax macallin way isku jiri jirta xaalima sacdiya xayba gaabow cabdi jeelle cabdikariim cabdi jeelle yaan isu edag ahaan jirna xaggay kaga soo dayn jireen xaggan kaga soo dayn jireen saakana waan kala tir nin walba waa buu meel ku dhistay horta faarax aqoontaada ninkaan aqoonin baa hadal ka soo dhigdhigahayo oo hataqyo meel ka ridahayo waxaa la yidhi habar baa waxaa la yidhi intaa qaaday baa gabar soo rartay gabadha markay soo rartay waxaa la yidhi markaas ayada bay intay qaaday bay ciddeenna gogaga hiliboo la buuxiyo iyo subag iyo adduun iyo waxa luqmad bay aqoon jirta waxa geedqol la dhahaa la yidhi quunle atoobiyii meelo ka sii shisho bari bay ka keentay meeshii wax laga kafilahayo subaga iyo geela la soo heegay hilbihiisi way quunla soo quftaa leeya araarabaha la dhahaa wax lagu soo ridan jira waxaa la yidhi na habarta waxay soo qustay dambaska muxuu ahaa habarta garaacaa la yidhi saasay u egto waxay tidhi xaadhinkii bay isku laabatay dambaska ku haadinayso war qurunkii qurunka dhalay quumi ayaa iska baray quud macaan hadda faarax magacaada ninkii dhalanteedu ku yahay dhalanteedu ma garad magacaada ninkuu dhalanteed ku yuhu ku yahay annakoo walaala adoo walaalkaya adoo dhowrashadaada iyo dhiiggaada iyo xinjirtaada ka shaqaynhaya adoo magac weyn le oo mawlahay uu ku muujiyey adigoo sida aan u liidanin adoon dhalanteed sina u lahayn dhawaaqdoona ilaahay uu awal kor mariyey haddana waan ku qaadno sida ayadaa markay tahay walaalow waxaan ku leenahay annaka hooyooyin baanna guryahaana lagaga tagaa tii haddaan laba wada hadlahaya keen dhallaynahaaba ku jiro odageen ha ku jireen haweenku xagay u socdaan baa nalale wax walba wuu naga daahanya aqoon hore oo wax hadda akhris ahna gabdhaha hore lama geyn jirin waxaan rabnaa inaadna muujiso ilaahay siduu kuu muujiyo inaad noo muujiso inaad magac noo yeesho gabdhaha inaad qaaddo faarax baa jiri way arrintuu noqon doontaa sidaa ayadaa niyada gasho oo ku soo dhowow oo walaal sidaa ayada ah mahad ilaahay baa lehe mahad ku qaado oo madaxgisig way ku qaaday allaha ku qaado
oo madaxgiisa way ku qaaday allaha ku qaado oo qaadis geeri aan ahayn ma garata midda kale jaamacadii gabdhihii bogo oo wiil oo gabar la caruurtii way tuban yihiin jikooyinkay ku soo noqon hayaan ayadana taasoo geesi ahna ogow iyo salaamu calaykum iyo warsan iyo waartiin okay mama حقيسي وسلامتين وراك عرب الذي دمانتي سلامة الإسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وحنا لمن أولياء النور كنت أوكي معي قال اسكي معي بعد سقطت قد ما وقت قبلنا على ما حسن حرام نبي وقت تبعنا بس استطاعوا أولياء أنا عشان بوص markaan soo kacnay oo idiin soo soconay ninaan soo qaadnay waan idiin soo qaadnay ninaan soo qaadnay yaan idiin soo qaadnay ninaana idinka fiirinay idinmana soo qaaday idinkana hadaladiina waan maqlaynaa aad baad u mahadsantihiin nala qaada idinma rabnaa waxay idinkaala qaateenbo haddee waqtiga idinkaa nagala hormarteen aad baad u mahadsantihiin awliyahan wuu ka dhan yahay haddee bini'aadanka waaba xoolaha iridda markii la xarayn bargara maraa laakiin awliyahan wuu ka midaysan yahay faarax maalin in la qaado intaa waa idinka tiini waa mahadsantihiin waa daanadii ani hadda saacadda laga bilaaba reer madaxgiisi baa noqon waan ka baxay guddiga aan la socda waxaan nooga baxay dadka hadlahay dhibka ay sheegan hayaan berri markuu faarax soo galo inayna noqonin waxaa la yidhi laba nin baa israacday meel col bay ku socdeen oo show reero col bay ahaayeen labadii nin oo socotayaa waxaa u galay ciidanka kii kale wuxuu yidhi may ani ay iskursi baan aaminsan wuxuu yidhi nin walba kiisa ha akhristo kii ay kursiga akhrinahay labamaba hadlinbo ciidanku iska dhacmalay teg kii yaasiinka akhrinaya bay ciidanka ku dhegeen markii la soo qabtay baa ninka taliyaha xagga fadhiya loo geeyey
marka wuu isla hadlay yaasiin gubaasta wuxuu yidhi war yaasiinow maxaa kugu dhacay war yaasiinow maxaa kugu show ninka ciidanka u weyn ee meesha fadhiya yaa yaasiin la dhaha anuu yidhi maad igaran hawaa ku garan buu yidhi war nin igaranaya laba dilaayo gacaskii daxayo hadda waxaan rabaa faaraxow maxaa kugu dhacay inaan lagu dhihin war faaraxow maxaa kugu dhacay inaan lagu dhihin oo sida yaasiinka aada noqon dadkan wixii ay ka calacalayaan maanta waa isla dhegaysanayna faaraxow markaad soo gasho dadkan waxaad u qaban kartaana u qabo geedkan maanta aan loo istaaganayna soo istaag faarax juu faarax juu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم السلام عليكم dhammaan waan salaamay martidii socotay iyo reer madaxagesi iyo muxuu ahaaye wax alla wixii kaloo nagu dhex jiro dhammaantoodba salaanta islaamka ku salaamay mar laba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta aad baan u faraxsanahay ama wiil duqay ha ahaato ama gabdhe ha ahaato dadkii hadlayay waxay ku hadleen maasha allah aad baan u faraxsanahay ilahay baa mahad iyo shukri iska leh annagu waxaan inii keennay faarax macallin faarax ma aha nin cusub waa nin muxuu ahay rugcadaa oo wakhti badan soo shaqaynaya dowladdana maanta waad ogtihiin oo isbeddel baa jira dowladda maanta waa isbeddeli haysaa hadday dowladda isbeddeli haysana nin cusub waxba kama keeni karo nin oday oo rugcadaay oo dowladda yaqaano oo aqoon u leh unba wax nooga keeni karaa annaga sahanka annaga wuxuu noqday faarax macallin hadduu maanta noo soo galo dowladda waxaan aaminsanahay wax alla waxaan rabna inaan ka helayno oo dowladda maanta aanna ku rafaadaynin oo meel walba oo dowladda ay muxuu ahay ku jirto u ogyahay nin maanta dowlad ku cusban ma aha meel walba oo dowladda ay ku leedahay ama meel walba nin yaqaano waayo nin cusban oo 5 sane uu soo galo ku rafaado ku mashquulo 5 sane ay nagaga dhammaato annaguna waxba macnaha muxuu ahay danaha naga ana gaarin dan ooguma jirto howlahan waxaan leeyahay dowladda maanta ninka la jaan qaadi karo dowladdu wax nooga keeni karo muxuu ahay dowladda yaqaano rugcadaaga ku ah muxuu ahay 10 sane iyo ka horba ku soo jiray isbika buu ka soo noqday waad garanaysiin maanta waxaan rabnaa dowladda maanta inaan ku darsanno ninka 10 sano isbeddelkee muxuu ahay xataa waqtiga isbeddelaayo positionka oo dhan la beddelaayo ninka maanta wax nooga keeni karo ama asagaba wax ka noqon karo muhiimaddii meeshuu rabo faarax ka noqon karo ninka uga 10 sano faarax kusii ka maqnaa meeshuu maalinka kaga tega faarax maanta waa meeshuu maalinka kaga tega qabigiisii maanta qabsi buu ka qaaday waxay ila tahay wixii kaloo dhan waxa uma tariso annaga maanta ninkaasaan mawlaan u keennay ninka ayna la qadaarnaa faarax maxaa tahayen faarax juu Okay, duqan waa duqa awliyaa waa duq reeson qaad ogaada toqaad waay duqan waa aadan khayr waaye ku soo dhawow soo gaabi السلام عليكم يا مدحجزي السلام عليكم aad baad u mahadsantihiin sidaad noo soo dhowayseen magacayga waxaa la yidhahdaa cabdinuur duqa isaaq ubaxla adeerkaya ninaadan khayr aan ahay guddaadan khayr oo tobaneeyaan ku soconnay waxaa ila socday xasan takar siyaad cabdikariin deeqow siraad abubakar aadan abubakar sheekh aadan waan badnayn 10 baan ahayn aad baan idin salaamaynaa raafkaab dawlad faarax macallin daacad raafkaab dawlad faarax macallin daacad awliyahan ha israaco awliyahan ha noolaado awliyahan ha midoobo awliyahannihaada deeqda ma fahamteen sidaas wixii ka hooseeya naga daaya baashaasa aad u macaan awliyahannimo raafkaab awliyahanka waa laga soo galaa waa lagaga baxaa raafkaab allaha kor ka dhigo awliyahan allaha kor ka dhigo waxaan rabnaa ninkaa inaan dooranno ninkaa gaaladan aan ku jirno wuu yaqaanaa iyagana way yaqaanaan ma fahamta inuu wax yaqaana keli maaha iyagaa yaqaana raganimadiisa aqoontiisa wuxuu ka soo dhacsan kara yaqaanaan marka maxaa naga noron nin la yaqaano waxna yaqaano hadduu wax noo qaban waayo wuu nahagraday ma garateen wax uu noo qaban insha allahu marka ninkaan dooranno kulaha aan siino maanta aan qaadno maaha maanta waxaan rabnaa ninkaa inuu noo soo galo waa midda kale odagaa inoo sheegay wuxuu yidhi ninkan waa falxad hadda cawlihan falxad soo ma jiro ninkan waa falxad berigii uu noo joogo ama aaran noogu dambeeyey soo maha
annaga soo xooley baan nahay soo maaha kulligan xoolaa noo daaqa haddee faarax waa farxad waa lagu farxay insha allahu markaan aan dooranno kuuraha aan siinno aad baad u mahadsantihiin waxaan rabnaa insha allah waxaad ogaataan hadhow madaxgisi meeqaa 1500 soomaha kuuraheeda inta faarax uga dhacdo waa la garan soo maaha haddee waxayr haddaan ku darsanno ninku uu soo galo yaan eedaynaa meeshaas aadaa loo fiiriya aad baad u mahadsantihiin aan dooranno faarax asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirka waan xiri rabaa raalli ahaada ninkii cod rabay kii walaalkii aabaa u hadlay dadka hadal ma lama gaarsiin karo bara kaale soo xir bara busi asalaamu calaykum waa mahadsantihiin madaxgiisi waxaan u malaynayaa hadda waxaa weeye waa amin gaaban annaga waxaan nimid saaka salaadii macnaha 2 saac oo lagaarin baan imaanay 2 saac oo lagaarin baan imaanay waad ogtiin habeen horan meeshan ay dowlaha habeennimaan ka tirnay faarax waa caarka afrika wey faarax maxal dawaara caarka afrika etoobiya iyo soomaaliya iyo kenya intoo madaxa buuya been baan foorun waad ogtiin ma aha ninkii ku soo noqon lahaa kuuraha ma siinaa masiyaana siina ninkii lagu warbilaha maha faarax maxal laakiin nasiib daro awliyaan buu ka dhashay awliyaan baa lagu qabtay jaaxawle awliyaan buu ka dhashay soomaalida kale hadduu ku dhalan lahaa hor buu u socon lahaa maanta madaxweynuhu tartami lahaa waxaan leeyahay soomaalida kale waxay dhahaa alan faarax looga dhalan waayo soomaalida kale anigu kushaan dhex degan aad u fara badan oo meeshan aan ahayn baan degana tuuladan ayna caasimada waxay ka baqaan waa faarax waa caarka afrika waa haliyey hadduu dadka kale ka dhalan lahaa soomaalida kale maanta meeshan muu taagnaa laakiin dolkii baa taagay wuxuu hadda laga rabo waxaa waaye kuuraha jeebkeena ku jiro aniga inta aan xukumo ama ismaqlayno iyo kuwa aan dhalay isagaa loo haya kuuraha annaga faarax kuuraha ma siinin mise maana siinin faarax macalin kuuraha caarka afrika ma siinay mise maana siinin ilmaa booyo maana siyaanay ilmaa booyo maana siyaanay ilaahay aan ka baqno faarax wuxuu meesha u fadhiya anigana habeen walba habeen hore meeshaan aan joogay inta tuulaha meel baantay waxaan ahay isku duwax bare ismaaciil cabdiyare axmed wey buusay nadaafgaw reewrta mugidana aboogay faarax yaarkayaalna caarka afrika balana haynoo ahaato bisha 8 agost taariikh 9 inaan faarax macalin ninkii gaar kuraasin waan ku balansanahay middaa faarax toosha okay ninkaa boosay waana bishii 9aad bishii 8aad maaho inuu ilaahay yidhaaho waxaan ku soo dhoweynayaa maxamed cabdillaxos yaa yaqaanaa ninkaa maxamed cabdillaxos yaa yaqaanaa laakiinse weyne waa la yaqaanaa maxamed cabdillaxos okay soo dhowow maxamed cabdillaxos soo dhowow DJ السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم baad u mahadsantihiin annakoo walaalihiina idiin imaanay annaga dad kale inaan ahayn waa ognahay kulliga wax isgaranaynaa duqheble iyo oday hebel iyo duqheblo iyo waaye intan guriga markii la dhisaay kulli ani waa idinla jooga ruux walba hadda xaafadda gannama waa garani wixii dhibaatoon dhacdo oo malagasi gabadhii laga xiro iyo wiilkii laga xiro maana saaxanaynay balisi annaka say u dagaalahayaan aan u dagaalayno dad badanoo aan jeel ka soo sii daagnay oo annakoo xanuunsan annakoo daalan aad baad maanta geedka hoos u joogta waxaa waxay ahayd magaalada inaan leenahay waxay idiin sheegi ani nin ree afgaaba yaa nahay afgaab ugu barwaaqaysan yahay cawliyaan midkoo waaye cawliyaan laba ma oho maxamed daahiya nin ree afgaaba waaye faarax macallin baa ka horreeyey marka ma faarax aan dooranaynay maxamed daahiya wiilka ree haawis iyo wiilka ree afgaab guriga ree afgaab baa lagu soo qayiraya shaha laga soo cabahay guriga ree haawis baa labariya laga soo galbanaya anagoo nabad bay ahayd ani khayrow baan dhisayey markii dambe maxamed daahiya waxaa afka dhulka loo geliya ree haawis buu ahaa ee kulan daahiyow kabaanahaad goysay kuurihiisa adaa iska leh ilma xaamud iyo kuwa kale la jiraan maryacabe yay ahaa afka dhulka naloo geliyey
waxaan dhahnay alxamdulilah alxamdulilah yaan dhahnay dhib ma leh waxaad garanaysiin reefka hadduu faarax macallin ahayn daliil ilaahay iyo nabadgelyo noo keeno waaye annaga reefkaaba ibar baan iska dhigireen waa kaa oor farahaysa dhehayne waa kaa maxkamadda isgeynayne ama jiita iyo khayroon waa isdili lahayen maslaxa ilaahay keeno waaye war faarax baa imaadeen isku hagagnaan dha waryahay waa kan faarax waryaa maadu fadhida waa kan faarax maslaxa ilaahay waaye 10 sanaan baarlamaanka ku jirnay dhaxalkii duqa afgaaba ma aho cawliyahan baa iska leh cabdullaahi sheekh dhaari baa uga horreeyey kununi baa uga horreeyey 2 jeer buu faarax macallin soo galay faarax macallin waxaa la yidhi beerta baranbaraaba ku dari dhulku si unu kala goon maxaa waxaa keenay wuxuu rabaa wiilkiisa inuu gafanaan noqdo saciid turcadii afhaynaa la dhahaa qoyskooda hore kuwa inay keenaan oo waxaan jimlaayadu iska qaadana nin gurigiisu miyuu ku yaalaa ma gurigiisu guba idinka guriga faarax uu gubnana asagaa lehe waxa idiin sheegi ma garanaysin dad meel kale ka imaaday waay dad meel kale ka imaaday waay idinka waxaa tihiin dad wadani dadka codkala ani fiiriya reer madaxgasi shaahid bay ka yihin reer dhadhaamna shaahid bay ka yihin nin reer afgaabana reer hawis faaraxow yay ku dhihin albaabka UN-ta nagala reeb ani afgaabana hashoo angeel ka qabaan wiilkayga u galay taa wacow dubaankiisaasaan ka qaad turcadiya jibraa'iil way ogyihiin meeshan aan ka dhugay halkay ma maqlaysa tuwaaleeba ku jira taariikhda markay dhammaatay ey baa lagu dalbay cunuga xaggu ku ilaalin cuntaha loo geyn waxaa laga reebi waxbarashadaa laga reebi iskuullaha korsi waa sida dadkan waxay la ooyahayaan waxaasay ogyihin marka reer xawis iyo afweyne iyo abokolcadde wax gaara oo la yeelo ma jire wax midhalaahi nagaga habsadaa jira ma maqlaysin waxa la guraayo afgaab asalba haddii afgaab iyo reer turcadde ay coloobaan xaggee la kala aadi qoladee guri cownaha wuxuu dagaa etoobiya gada kenya qola intay dagaashay cownaha israa'iisoo kala guurtay ma maqasheen ninkii walaalkii diro ceebunbaa u dambayn annagiiyo waafataa galbabay meel loo dhaho ku dagaalaa la yidhi oo ebel la iska dhigay hadda maanta maxaad aragtaa waa un sidii walaalnimadii waa un sidii hadda caaw faarax waafata saa u daaro annagu aan soo yaaseenna wixii yaroo uu siyaasasiixay isagoo absamad uu sheegahayo malaha la durayana moogide wax la duri doonana ma jiro markaad soo gasho waa afgaab oo la duri mara wiilasha ogyahana dhan waa la shaqaalayn ree afgaab waxaan u sheegi yaan idan la goynin been yaan lidin sheegin sidiina waa tihin turcaddana waa sidiis afgaab waa sidiis warfaara maxaa kaa keenay turcadda waxbaa liidiidu yidhi reewaama babilheel baa kaa lagu kiciyaaye saasaan ku soo kicinaya hadda owyaan baa nahay hadda owyaan yaana faara waan kuu sheegi madaxgasi bari intaad maxwin sirato haddaad wiilal awlaanu mas-uulatiin khayowna ha kocoo habari kulan awlaadnimadii saasay waxaan kale la abuuray annaga dadkii waddankaan ah annaga wiil qandaraas la siiyey yuu wax soo sheegin wiilasha waddankaan duqayda waddankaan waa yaabannahay labadii wax dhex maro waa la iswarsan jiray waa la isla hadli jiray dalka la wada yeeli jiray waa la xallin jiray soo ingii baa lahayn adig 7 roobaa lagu gogowraay meeshan salaada ilaahay baan kugu dhaaftay gacantaydaa midig baan ku dhaqay shantinaba gacantaydaa midig baan ku dhaqay saxariin iyo fallama meesha tahay kitaabkaan sheekha ka fuji weyne badeeraan beera u hardisay masoonaad baa kaaya fayloo raacay ka margud xagga aw duqaydi biiska farad aw duqaydi biiskaa tirigala arrintan kabtan ku kooba hal ruuxoo dambe cunyahayu ka dhiman sidaasaa tiri magalan afaraad iyo 60 odaysay meejii u fadhiyeen marka 7 milyan baa raacay wiilkii wiilka cawliyahanaa dhintay ninkii mas-uul leh markuu shicibka wax iska hadlaya yaa la rabaa ninka mas-uul inaa marbixiy mas-uulkii laakiin gabdhahan iyo gabdhahan inuu la hadlo muslimnimo cawliyahan ma aho kaa mas-uulkuu raadina ani faara hadday soonqaad iyo isdagaalaan reefka oo reer soonqaadna fadhiiso mas-uulnimadaa meel baa kaga dhac waddanka annagaa iskala qandaraas waay cawliyahana wadaninimaa loo baahan wadanimaa wiil qandaraas la siiyey cawliyahan inaad madaxa usku goraa hawaysoo kale kama iyo waxay jira sheegi wax la abuuriyo badeeca lagu shira waay afgaab iyo turcadiya reer xawis nabad waay wixii noo dhexeeyana
biiska iyo duqeyda waxgaradka waddankan odayaasha ka ahayn jireen ha galaan may waa la sheegaya kuwa lagu yaalin محمد عبد الله حسب وسويلكم عليه وقرابكم وطبعا الداب وسنتي اوكي waxaan ku soo dhaweynayaa ugaasi عبد السمد انت وان reewa fate waa soo dhaweey soo gaal والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. horta magacagisi waa salaamantiin sida sharafta leh oo noogu soo dhaweyseen oo naga hor imaateen yaad ku mahadsantiin waxayna u egtahay dad daacad ahood maanta rabay inay doortaan faarax macalin badweyn waxaan idiin sheegayaa cawliyaha waa walaalo wax dhex yaala xaws iyo abgaab ma jiro waxawaa kursi wey kursigana cawliyahan buu u dhexeeya cawliyahan ninka sagaalka dabe cawliyahan ninkii soo haweysto uu u banay nin lah oo dhihi kara anaa iskale ma jiro caawis iyo abgaab iskuma haystaan wax kursigan cawliyahan baa iskale walaala weeye cawliyahan yaana kala saarin foolxumo weye meesha aan tagno waynaa cawliyahan aan tusno boqdad iyo balaayo waa laga fiicanya cawliyahan wuxuu maanta ku nabadgalay waa walaaltinimada wax dhib dhex yaallo oo maanta aan sheegayna ma jiro waxaan idiin sheegi naga aamusa sawayna daylada naga daa waxaan idiin sheegi asdegeysano waxaan kuu sheegi soomaali waxaa hadda nin hadda ka hor waxaa jiray geel lahaa loo lahaa ari lahaa oo aaranti roobka intuu dayay arli ilaahay ee aarantay asdegeysana arli ilaahay aarantay ninkaas wuxuu yidhi dumarkuu arkay loodii oo soo xarooto maax loo weylihii haysato arigii oo maqashii lagu soo daayey geelii oo dhirgihii lagu soo daayey yaa wuxuu yidhi ilaahay maanta dhegta wuu hayaaye ilaahay dhegta wuu hayaaye ilaahowyay u gu'in faarax maanta waxaan idiin sheegi ilaahay dhegta buu hayaa ilaahay ninkuu dhegta haya maxaad u malayn waa wax weyn ninkaa inuu wax gofi mukula tahay nin ilaahay dhegta u haya inuu wax gofi mukula tahay annaga waxaana looga baahan inaan garbaha ka galno aan kor u qaadno dhegta suna oga xanuunsan inaan garbaha ka galno kor u qaadno yaana laga rabaa tiimana ila qaateen maya bilcanta raba ma ila qaateen waxaa la yidhi munaafaqa 3 calaamuu leeyahy السلام عليكم. دي جي السلام عليكم. أنا بقعي وحنا بشارع الدولار. بشارع الدولار البيري. وحال ميشان إذن كوي ما حوال. إنا هل سؤال الفيديو. وحاجر امتحان. نبقى بريقي السنة امتحان كاس. امتحانكي نبقى نبري امتحان جيسني امتحانكي هو سميه بقولكي وبقول بوكا كيني ما فهمتي امتحانكي حدنا سو نقضي 10 سنة شلي 10 سنة كنت امتحانكي وسو نقضي يان جيسنينا نيكي بقولكي كيني ما جيسنينا بس أنا أنا كيني أنا قررني بان جيسنينا امتحانكي ما قررنيسي امتحانك وحواي جاء لقديرة iyo dadaab waxay qabtaa 12 MCA ijaara oo walaaleena 4 bay qabaan ninkii kale ninka waa gambarkan dadaab MB lagu leeyahay ninkii kale ninka waa 2023 Kenya wax bay kala qaadan rabtaa nin waxaa jira rag weyn oo la dhaho James Orengo iyo waa niman duqooshiin oo waxa way markay miiska soo hal gacan hadii darsan saxanka ay ruwa nin la darsan raba dhulka wala kala goor raba MCA bal u darsan raba waxaan rabnaa ilaa idamaajaalay ilaa ay alqeyle inay 3 MCA ama 4 MCA ka soo baxaan biidnillah hada shaqadaas adan ku ognahay waana ku dhiibay waana ku aaminsan السلام عليكم.
intaan aniga hadlin 2 gabdhood oo Nairobi ka imaadeen 3 gabdhood oo inala joogaan ayaan rabaa inay ina salaamaan 2 qaali iyo timira وانا سلام سجال كدبي عوليهن أسهان هي مدحجسي أب ما تنتين سيدا قرطة بدن يدوسوا دويسين وشما فرح معلم دوارة يمرتديس وراهن وحني شيء هي مدحجسي فرح معلم وحنسوق هذا سجال كدبي عوليهن عروري أردن كودا علومية عاملهم وانا ننجا وانا سوسو قلنا رمينا نورا قادان وأنك كل أهلية وهو كرسي الوقت من كل marka leemadxisiyo hadama aad mahadsantihiin hadiyaygeena aan dhisno awliyahan ma kala aha ninkii yiri awliyahan baa kala been buu nii sheegay sagaalka daba awliyahan waa hal wax awliyahan oo kale ma jiro laakiin waxa muhiim noo ah ninka hadiyayga oo noo qalmo oo caalamka aqaano aniga oo leedaho qaari ku haadicis qabiilkeena reer baabo reer saalax السلام عليكم حالنا قال حسن بارح ساكر ما نمشى على كي ما ني سدنا هلا نيرو أنا إسلام عندنا ورا خطابة رئيس مجلس لما حكيت أنا كماشان كيماني من فوق بيه عوليان أنا ماشان كيمان عوليان وقاعدين بالاسم مال عوليان ما جرت ما كانت من محاد ماشية محاد تغيرتي مالان أو صومالي كلام حدها دنا حدها نيكا سوقري دنا حدها نيكا هنوسو قرينا لعقت اللي قرأ هي فارح معلم اسمعي كيمان ده ساموسي فعلك maxaa nagula diiday dadku xun maxaa loola rabaa cawliyahan oo dadka horumarna la siin lahaa maxaa nagula diiday cawliyahan dhaleyeesha aniga meesha qadaraas oo ma soo doonanin inaa ininka wax noqotiin baan u imaada ma maqasheen waxaad samaysaan madaxgiisi maalinta uu kuuraha dhacayo waan iga fiirinaynaa kofigaan iga fiirinaynaa kuuraha cawliyahan waan inay looga cawliyahan wuu israaca xalay ani guriga faarax baa mariyey عوليها لا أفكار بقول دمبي ما قلت هيك لكن وي معناها قاعد بسرعة واحد دمبي وحير معناها اللي هنا فرح معلم ويل ولا كان بعتها عوليها موت وحير بظهر شنطة حبيبي تونقع حصل منكم ولا دارين هوا مش السجارة دارس بس وحن كذا أنا شيء ويل بساقه اللي بمرسلين أو واحد مسحة اللي جاني ويل شوي جوران وويل العوليانة ورأي فقابة ويل رأي وسمجيله الحالة ده ويل جمع وسلي وحوم بقى مسكحة ليجري وحالي مع وسلي وصاقة الفرح معلم مترو إنسان دونك فرح معلم هنا دويل شابون وبيستح جارس يصح اسكار كدكتور يلوفون ما بكيني كلام هذا أنا نفسي ده إذا حق لنا عبان عيدنا وحان رأينا يلوفون سيصح رصاص شلشلة دولي السيا قولي ويراس اللولي هاي وذلك الدفاعان عوليان بيقول شيء نيجي قولي هاي نيجي الدفاع يا ساعات قولنا لك الدفاع اللي نعيشه ولا هاي كاري الوتين وحارنا هذا ميلاشاس إن أضحك كدكتور وذكر بسيد ومان أنا كنا مالدر بيجي يلا ميلاشاس حارنا حتى الحين أنا بيروفون بقنايا وكمان اللي كرنا ميديا أنت ما يسوي marka wiilashaas gacan xoog leh in lagu dhigo sasmay qaadeen sasmaday qaadeen inay tii runta aheedna sheeg oo inta taagano jaamacad iskuul baastay jaamacadna wax geystay weysay marka gabadha nafteeda gabadha dhashay waxay rabaan inay gacan ayaan aad ku qabato macawisley ininkan waxaan leeyahay reemaxgiisi farax macalin wax yar baa u saaray ha ku ceeloobin intaad aadiin دوقة كرو غالا بسم الله الرحمن الرحيم أولياء سجال قصة وين سلامة قبلنا وعن إيه ماذا كيسي وين سلامة ولا ريال وعنيني مع نساكا وعنيني ونهديات خالية
waxaan ini wadnay mashruuca faarax macalin dawaara waa gaasiga xooyaan haddii la ogaadeen waa gaasiga ogaadeen waa calwaan halkan inay lagu dhaarto haddii la ogeyn walaalayaal aniga waxaan dhaha timiraan axmed cumar waxaana gabaree warsoo gediida halkan oomay mali aan kuura ka qaato gurina iguma dhisno laakiin qadiyad cawliyahan baa wado annagu ogaadeen baan dhex deganahay khaasatan ma dhex degan cawliyahan iyo dhadhaab iyo dhagdheeraay ma deganin waxaan deganahay ani nairobi khaasatan mukaan baan sii dhex degan waxaan deganay machakos halkan waxa iga keenay waa qadiyad cawliyahan faarax macalin waa ninka keliya ay ogaadeen ka baqaan waa ninka keliya soomaalida kale ka baqo soomaalida kala wadata cawliyahan baa gabalaalayaal waxaan ini baryaynaa inaad idinkoo ka faa'iidaysanaysiin jaaniskiina idinkoo ku faani kartiin wiilkiina qaaliga inaad faarax macalin kuula xasiisiin inaad faarax macalin kuula xasiisiin soo dhawaada wiilka waa wiilkiini cidna ina gama xigto ruux albaabka ku garaaci waad ku garaaci karaa gurigooda haddii waa taqaana xaaji dawaara asaga waa taqaana gaalasuu degan yahay haddaad adiga idin walaalkaa wax ka helay laakiin maxaad ku faani qadiyadii wiilka cawliyaan ani waxaan tahay naga cawliyaan matii naga qabiil kale soomaalida kale anaga waxay dhahdo faarax muxuu nooga dheelan waay faarax waa lagu faanaa annaga waxaan moodnaa inuu faarax cadowi laakiin waa lagu faanaa haddii noogeyn soomaaliya kenya etoobiya saddexdaas cawliyahan dega haddii noogeyn ogaadeenka kale xagga iska dhig annaga weli majority weli cawliyahan laakiin mijaan ka nahay mijo hadda waxaan rabnaa kenya inaan ka noqono madax inaan ka noqono inaan tagno kursiga majority leader utagi jiray hadalka inaan tagno majority leader ayaan rabnaa soo dhawaada walaalayaal adeer faarax adigana soo dhawow gabdhaha nada qaaliga ah cawliyaad dagaalka jida gabdhihii reerka gabdhihii reer warsoo gidid ku soo dhawow wiilasha nadi maxamuslayna waa ballan guriga u horeeya shaqada horeeyaan qabanayso inay wiilashana uniform gaarigoodii isbitaalkii maamoyinka noo sheegeen iskuul secondary kulli inaad soo dhamayso ilaahay kugu xiftiy adigana idinkana allah idinku xiftiy walaalayaal fursadda qaaliga ku raadaysa isbitaal maamooyinka waxay dhahaan markii gabdhaha dhalhayaan isbitaal ee lagu dhalo ma laha marka dee isbitaalka oo muhiim soma meesha lagu dhali lahaa waxaan oo dhan waa gabdho yaryare horba u jiraan way dhaldhalhayaan meel lagu dhalo oo wanaagsan allah inay helaan waa muhiim iyo waxbarashada kii wax bartaan hor muusa dhali lahaa waxaa kaloo jira saxare awey gulaaska awey saxare ويبان سحلة أبان فنانك أبان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ريم العجيسي دماتي والسلامتي الصومالية دقن ولين كدقن عاوليان كدقن المالات دقن هذه ما سدي سيدا قروق بدن الدوس وقدين كنت وحاد موجسين جعيلك قروق ذا والنمضة دلشاد وحي تاي أنو هذا كسيد يرين مايو الفريم مع روايان نيشهو إلا واتكم الله يفارح معلن قيقظة علي هذا النمى رون كشيء دام باوكيت فارح معلن وهليي أقادين وهليي الصومالية وهليي عوليان waxaan rabnaa meesha uu ka taagan yahay ka soo gelinayno dhadhaabka iyo maahabta gadan faarax maalin hadduu dhadhaab ka soo galo jigjiguu ka soo galay xamar buu ka soo galay kismaayuu ka soo galay nairobi buu ka soo galay gaaris buu ka soo galay waa liidha qofka hoggaanka in la ilaaliyana waa waajib faarax macalin aan ilaalino hala ilaashado reemadaxgiisi oo idinka dhex bixi mayno waa idinku soo laabanaynaa waa idin imaanaynaa allah idin shafro aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum مشروع فارق قف كستو عدكينو وعباده من قاعد وليسان عدكينو كعباديست قلبينا يدنمدينا وحياتينا كحرية سكون حرية ما أنت سياسة جيش أفريقيا عويا وحوكي ودكتي قف كريان رمنا عباس سابتنا وفرح هذا ما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك لأنه حاجة قدوميه أها وهي هدي وهي اللي يرضى واللي يراهده صالح مختار أو صالح مختار صالح مختار بصور بليه لكن وين بنقول كل مكان لنا وصلنا ويا زمان وصلنا كذا وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
سيدين انت كبد الله بقى ما اسكال سبحانه وتعالى صاوي ذي شيء ويو أنا نعود لها عن هذا قاور والسماء فارح معلم وصنتي وإسبدل دون كجيز كأفريقيا هديت إثيوبيا هديت صوماليا هديت هاي كينيا وهذا سعوتان إنك ومدة دير كلي كصهاري ما أنت يوجد مدحوينها كينيا إن شاء الله تعالى ريلا أمولو ودينغا guusha sidaasaa lagu dhaliyaa sidaasaana loo sugaa sidaasaana maxaan ku dhahay loogu sabraa waana sharaf keligii uu mudan yahay maanta geeska afrika uu kaga nool yahay wuxuu yahay maanta waa sayid cabdilla xasan oo kale buu noo jooga meesha sayid cabdilla xasan buu noo jooga absamo uu ka joogay ama ogaadeen uu ka joogay ama soomaali uu ka joogay marka waxaan rabnaa reer madaxgisi sidaa hore u sheegteen eed ka markhaati kacdeen in uu maxaan ku dhahay faarax macallin madaxgiisi uu dhisay wax ka dambeeyey inaysan jirin haba yaraatee waxaa jira fidno fara badan oo la gelinayo dad fara badan ay ka hadlahayaan inuu madaxgisi rari doono reer warsamay reer abgaab inuu rari doono dad baa ku sheekeeya waxaa waxba kama jiraan waad soo aragteen waa walaalkiin waa aabbihiin waa ina adeerkiin waa mas-uulkeenni waa ninkii meeshan bilaabo weeyo ilaa maantana waxaad leedihin maalinka ugu dambaysa ilaa hadda waxaad leedihin isbitaal ma hayno waxaan insha allahu tacaala kula dardaarmayna asaga inuu isbitaalka dhiso madaxgisi inuu gacanta ka bixin oo maxaa gacantiisa uu ku hayo inuu istaago waxaa xuquuqday u baahan tahay inay hesho in cawliyahan uu dib u mideeyo annagu cawliyahanimadan ku barbaarnay kuna weynaanay intaasaana deeqda dhaqanka reer abgaabna waxaa weeye inay cawliyahan gacanta ku haystaan midka jilicsanna soo qaadaan inay cawliyahan xoog u sheegtaan reer abgaab ma mudna waxaa weeye walaalayaalow magaca faraha badan ee beryahan soo baxay ee la akhrinhayo waxba kama jiraan waa lagu kaambeengaraysana iska ilaaliya ma wax dadkiina halkan jooga ee isla degantiin wax dhibaan dhex yaal ma wax dhibaan dhex yaal soo ilmaha dadku soo cawliyaan maaha waxaan rabnaa ninkaasaan dantiina ka dhex garan reer madaxgisi idinkaa ismaamulay waa ka jeemanka maanta meesha jooga waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad lambarihiisa ka qaataan wada sheekaysataan waxa loogu hadbaantiin kala sheekaysataan muxushimo waxaa jirta sidoo kale توفيق طولال ده هالكن كتالا أيضا إن شاء الله ولا تعالوا بهاي لما جالي هامي إلى ذيك لما سعونا هدوله إلى هذا وحان ربنا إلى أن ترتورنا بينتا يبربوا عندنا يرتا اللعيب كأدد يركوكا من قرين أيام هالكن وحاسوق الجري لمن عوديها نفربا لمن جايها وحاودا بيهضم ما تكوشرا دكتور داهية عوديها مكوسودا ما ملا عرب قبلي مكوسودا سعوديانو كما سوقل برينا نيكي سوقل دورو فارح معلم waxaan rajaynaa inuu cawliyaanimo ku soo galo shalay cilmacaan baa ku jira koorey faarax macallin kiluuna baa ku jira cawliyaanimo ku soo galay waxaa la rabaa ninku ilaahay u qadaray baa kursiga helahay laakiin qoys iyo qabiil iyo qabyaalad iyo dadkii la isku diro oo been la sheego walaalayaal ka weynaada warkaana iyo dhagtiina cunin cawliyahan waa dad ehela maanta codkiina faarax macallin kula xisaabtama siiya barina annaga nagula xisaabtama oo saalax muqtaar gudoomiye cawliyaanka awaydaha haddii madaxgisu wax u qaban waayo asaga uma rayaa kulle insha allahu tacaala aad baa maatan soo dhow wax yar baad ii samaysaan away bishaar walaalkiisa xuseen bishaar walaalkiisa bishaar walaalka السلام عليكم أبين نصيحتي مدحي محل حسين عبد الله تعالى وأنا عندي أحباب الرفق الطيب محمد داهية 8 سنين سمع عليا بس سمع 8 سنين ما أنت بيربان سوق بيما قبل سنة شيء زين ما أنت هوسبيتال لا أنا يوم ما أنت وحنا كان يا فارق توسع عنه قاباهيل اللي قاعدين اللي عندنا ما مغشيد ما أنت فارق معي وإبني ما أوتم بيسه dhalinyaro intaan dhan oo shaqo la'aan oo duwaga ku qayraan ma jiri jirin ma fahmaysaa annaga baahi baan haysaa ninka baahida naga bixin kara ilaahay kasukooda waa faarax waxba yaan anaga shaati qabiilna loo gashanin waxba yaan la isku dirin dadka makastii carruurta iyo dhalinyarada aan waxba kala ogeyna magaalada tuulo joogana boqol boogood yaan loo yeeli ma maqashin halkay dhalinyarada mustaqbalkiina wuxuu ku jiraa faarax macallin dawaara ma maqashin nimankan markii Nairobi la aado isjeceliin shaal isla laakiin markii idinka inta la yimaado waxaa la idin sheegaa inuu col jiro inuu jiro col reebel iyo reebel shaati in la soo gashto sheekada ayada meeshaas ku ekaani insha Allah taala balanteen maxaa waay gacmaha kor u taaga balanteen intee waay faarax macallin dawaara
mashmuuc ani hadal badan ma qabin wuxuu faarax macallin 20 sano ugu dambeysay cowliyahan siyaasadiisa dal iyo dibad dagaal ugu jira inuu cowliyahan Itoobiya wax ka noqdo inuu cowliyahan Soomaaliya wax ka noqdo inuu cowliyahan Kenya wax ka noqdo Soomaaliya ogeyn wariita Soomaaliya ogeyn hada ragii cowliyahan siyaasadda aan isku yarahaynay ee Soomaaliya national government ninka markuu farmaajo la shaqeynay maanta national government Soomaaliya maxaa ka haysanaa cowliyahan buuqiye wasiir baan ku lahayn qareenaan ku lahayn shaqooyin badan baan ka haysanaa maanta maxaan ka haynaa wax shaqoon ku hayna mala soo maaha horta siyaasadda ninkan uu ka doodahay waa siyaasadda bannaanka wuxuuna ugu talagalay inuu cowliyahan wax ugu qabto faarax dadka diidan inuu soo galo inta guryo kuma laho gaaris guryo kuma laho madaxgiisa guryo kuma laho dhadhaaf guryo kuma laho guryahooda jigjiga iyo kismaayo meel kasii shishay joogan ani marka waxay ila tahay ninkan waa walaalkeen ree afgaab haddaan nahayna ninkan wuu dooran 60% ree afgaab ninkan way wataan 60% ana xaqiiq idin haya si hoosaan wax u ogne ree afgaabow ninkaas aan doorano waa walaalkeen ree afgaab inta wiil uu wax u qabta ani haddaan idin sheego wallahi waa yaabaysin takhaatiir hadday noqoto maxaa la dhihi jiray rag injineer wiil iyo gabarba wuxuu wax u qabtay ragga maanta oo ugu tacliinta badan faarax maan rag wax u soo qabtaa ka mid ah marka waxay ila tahay walaalayaalow ilaahay aan ka cabsanno fidmada aan iska dayno nin alla ninkii fidmo wax ku raadiyana asagay dhibi waxba ha ka walbaarin idinki marka mheshimiwa welcome madaxgiis waa lagaa jecelay soo dhow waxyar raalaha soo dhawaada buuqii boolada naga daaya ninkii madaxgiisa waxaa nii sheegi ninkii nin duro ama hadalka haleeyo asagay qaas u tahay madaxgiisa waxaad dhegaysataan ninkii hadalka xumeeyo waa nin asaga qaas u tahay ma aha faarax ereygaa kuma hadlin guddigiisana kuma hadlin waa nin ree afgaabaayo ninkaa ku hadlay nin ree xawisna ma aha middaa iyada ka raalli ahaada daahiyo wuxuu qabtay waan ogsoonnahay cawliyahanka baanduu ka derjiyey wuu tegey waan sogotinaynaa 10 sano wuu ka baxay wuxuu qabtay wuu noo soo qabtay khayr allaha siiyo wuxushmaan aan soo dhoweyno ninkan baan rabnaa hadda inaan dooranno madaxgiisiyow ninkii khaldamay ha la khaldamina asagaa ku soo dhoweeni soo dhoweeya muxushmaan karibu mheshimiwa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحالد هذا محمد يرى وحكوا علينا محمد كيلوغو. لأنه حالنا علينا هذا كابر هذا ورسمينه. وحني شيء يا هذا الوالد أمي. وحني شيء يا المدحكيسي سلو شاغيني كا بحاي عوليان سغالكي وحبا دابي بقولكي لحدن بوتا بقولكي وتضلاتن بوتا فارح معلم وحني شيغايا والله ياو سيدان كووني ku daadihiin ilaa 2020 aan ku soo wadnay waxaan keena waa isla soconay kuulaha maalin ku dhacay wax yar baan nooga haray kuulaheena waxay noo ballanay faarax macallim sidii roobkiina ugu daata karibu mheshimiwa somo faarax macallim haya mkofi karibu faarax tosha haya kabaka faarax tosha haya karibu mheshimiwa السلام عليكم. horta waxa weeyaan siyaasadda dhaqan yar bay iska leedahay iyaan waxay kaadin dhaqan yar bay iska leedahay daada dhaqanka iska leedahay waxa weeyaan dadka ninba wax buu xushaa marka hufanaanta iyo misaylka siyaasadda waxaa ka mid ah wixii hadda aadan jecleen markaa maqasho waan iska dhegaysaa waxaad jeceshahayna waa la dhegaysaa qofkii marti oo ku imaadaan وكذا قفك مرتين في مالك هذا كان يسوي وكذا قفك مرتين في مالك يكون دورها هذا وحاويا ولا سونا ويا ولا نجيسنا ولا سويت يا سفيان
markay tagaana maalinka adiga codkaad ridayso meel alla meesha aad jecesho baad u ridaysaa waad maqasheen soo ma qof hadda maanta si kasta haddii la sameeyo awood kasta hadduu leeyahay madaxweynaha waddankan intuu yimaado kuma dhihi kara qasab igu rid oo maxay ahayd bahalka kaarka jeebkaada ku jira adiga qofkaan doon igu rid ma dhihi karo waad i fahamteen marka waxaa weeyaan waxba cawliyahan oo idinka dhexdiina isku bubuukana saymida fahmin saymida fahmin ha isku bubuukana maxaa dhe waxay tusaysaa bisaalyadidii siyaasadday tusaysaa idinka isdhegaysta nin kastana meeshuu doono unba hadhowna mari ninkii ilaahay u qoranna wuu soo geli ninkaan ilaahay u qorinna ma soo gelayo wax kastoo dhan si kastoo u jeceshiin waxyaal baan idiin sheegi rabaa siyaasaddana way iska been badan tahay way iska dhacayd badan tahay dacaydeeda way fara badan tahay beenteedana way fara badan tahay ilaahayna lagama cabsada inta badana waa shuqul shaydaan oo meelay haddii ka imaatay meelay ku socoto nidaam hore oo islaamnimadii ma aheene maadaama aan degannahay waddan nalaga badan yahay sistamka ay keenaan baanadana ku dhaqanayna waxyaabihii aad ii sheegtaan baan rabaa inaan wax idiga sheego waad ii sheegteen inaad isbitaal u baahantihiin isbitaal inaad u baahantihiin baad ii sheegteen ikhwaani qofkii aanan raalli ka ahayn oo aanan jeclayn dadka suu yahay nin kasta gurigiisu iska tegi karaa meel makhaayaddu iska tegi karaa wax dhankaasoo kale buuqa naga daaya buuqa naga daaya marka waxaan idiin sheegayaa waxaan idiin sheegi dhegaysta aniga dhegaysta waxay dhegaysta waxaan dhegaysta waan mahadsantihin ilaahay baa mahadle soo dhowaynta qaaliga ahaadna aad baad ugu mahadsantihin hadalladii iyo sharaftii iyo wixii aan soo marnayna aad baad ugu mahadsantihin anigana wanaag waan iga qabaa mar kastaba aniga mid baan idiin sheegi middaan idiin sheegi waxaa weeyaan siyaasadda kursiga naytow anigoo cawliyahan i jecel yahay oo soo noqon ileeyahay raafkaa weli u badan yihiin ayaan ka haray oon idhaahday maxamed ayaa la soo dhiso war shaahid ma ka tihin misameel ma tihin shaahid ma ka tihin tolnimada guud unbaan u samaynaya weligayna sidaa unbay ku soconaysaa nin reetul cadday isla istaageen ninka reetul caddoo taagan ayaan asaga soo dhisay aniga waan kanu idiin sheegaya sanweyne sida cawliyahan u israacay cawliyahan midaysan baan aniga ka tegey mar raba cawliyahan inuu kala tago imaqlaysa cawliyahan la isku diro oo la isku fidneeya mar rabo niman yahow shacab haddaad tihiin isjeclaada wanaaggiinna muujiya ninkaad doontaanna soo doorta anigana qasbaa jira farax 500 gaar hadduu la imaado helkabtooyin iyo ciidan la imaado intii la imaadaan dhihi kara xoog ugu dhisa mayda cid kastana hadda cid alla ciddi soo gasha wiilkeeda taagan awowaan u ahay waa wiil yaroo sharaf leh asagana oo qiimo leh ninkana waan asaga ha doorto ninkana waan faarax ha doorto ninkii ilaahay umansiga ubaan soo geli kaa baan isku tegaynaa haddana aan soo dhisay oo maaragtay aan garab u noqonaynaa maad maqasheen soo ma laakiin aniga waxaan necbahay kala dilka cawliyahan may maqlaysaan taa iyada ma yeeli doono haddaan idiin sheegi ninka igu jecel iyo ninka igu nacay waa shoorki kala dilka cawliyahan hebelow xawisow soo kaca afkaawow soo kaca hebelow caynka iimaanku leeyahay ninka faarax haddaad ku aragtaan middaa iyada ilaahay u barya masaajidyaha galayo inaad idin socoto waad gartaan soo ma ma oranayi waa fatooginta soo istaag ceenkana u samaynaa tollaayo tolbeelay reebelow siyaasadda nin la yidhaahda ree hebel oo indha iyo laga qabo inti meesha la fariisiye hadhow baarlamaanka kaa dooda oo gurya kuu dhisi oo waddanka horumar kuu samayn miyaa jira wiilkaa yaroo meesha geysay odaygaa meesha aad geysay unbaa wixii uu kuu sameeyey wuxuu kuu soo gooya cadkaada kaala soo gooyay nairobi unbaa cad ku hadday taladaadu xumaato habarkaalis xoriyadana kaal ku leh dhegaysaanaa kuu sheegi horumar baad waayni dhibaato badan baad la kulmi khasaaraad la kulmi ooyin baad samayni ooyintaasayto adaa sabab ee maxaa dhe meel aan munaasab ahayn ayaad wax maxmaartay wax qaali aha aad marisay okay waxaad ii sheegteen inaad health center aad u baahan tihiin health centerga waliyaa naga aamusay isbitaalka aniga haddaan soo gala sanadkii u hore ayaan idiin dhisayaa insha allah wuxuuna yeelan doonaa meelay gabdhaha ku umulaan
ومن مغليسان كما حيرنا إلى الصدر تاني الصدر هذا لما عندي صدر من صدر تام بغل ما شاء الله والمريمية حلقة في الدوسانية دورها وواجب السعر ولها دروة يدي السياسة فالكاسك اسقول كمعلمين بوباهية معلمين توازن كلنا يا هذا أفر معلم باشكتين انت أبويا تتوهم ما كان دونا إلا دولي توهم ما كان دونا إن شاء الله ودولتنا بحنا يسمي شاركونا ويهول أنا نسيا أسكرتي على أنا وهي جريا بداية كنت رجال إن غير في عنك قالن دونا تعليم مين ماشين إن شاء الله بإذن الله يبارك وحويان waxaan kaloo idiin sheegayaa waxaan maqlay meeshan intuu networka wiilanimahayaa soo ma bir dheer baan inta ku suuli doonaa insha allah muddadii ugu yar ugu degdegsiiya badan sifa maaragta safaricom aad idinka uga faa'iidaysataan meel kasta looga faa'iidaysto alwalaheedana hadda markaan saa u noqdo waan bilaabay amii maqashaan waad maqlaysaa isbitaalka wuxuu yeelan doonaa gabar umulse ah oo maaragtay iyadana macinka oo midwife la dhahaa ku talagala midayada eriinkaarka horena wax weyn baa looga qabtay sidii si ka sii daran oo ka sii fiican ayaan u wadeena waad maqashaan sooma kibaandhaa la yidhaahdaa eriinkaarka iyo kibaandhada la kibaandhada way sidii way u socon way ka sii fiicnaan weliba insha allah waa sii laba laabay tacliinta cunugii halka shayga oo idigu kordhinayo kibaandho dambe ood heli doontaan oo lacagkee lagu dhihi doona malaha laguma weydin doono kaama heshimiyaa ku shaqale anaana ku shaqale sidaa waxaa ku istaagaya gore weydinayo mar dambe kibaandheed markaad qaadanaysaan mase caruurtiina lacag intaasoo keen laguma dhihi doono taas yada meel ku xira saasaad ogaanaysaa ardayda tacliinta dhiganayso tacliinta awliyahan waa halku shay midin sheega waa midin sheega hawrina faaraxuu fantamaya caruurta awliyahan boqolkiiba 90 ninkii jaamacadaha ka soo bixi waa ninkan meesha taagan hadda inala hadlayo caruurta iyo dumarkaba UN-ka berigan ka tegaya waad garanaysaa si ahayd sooma wiilasha geeldilahaasoo laba shaqa may haysan war berigan soo saamaheen inkastoo dhallinyaro badan u balantiin oo kale beriga carruur aada heleen sidii bay ku soo noqonaysaa shaqo badan baa ka dilaci doontaa meesha kawaankaas awliyahanka lagu qasho oo UN-ka la yidhaahdo sidii hore aan ku soo celinaya insha allah sidii hore aan ku soo celinaya shay ma maqlaysaan waxaa jira dhallinyaro askar ah oo macuusley la dhah waad garanaysaan sooma waxaa la yidhi wiilashii macuusleyda kulli waa shaqadii buu ka fiijinaya baa laga yidhi sooma beenaale kadaab ee wayaanka saa yidhi kadaab waad maqashaan sooma waan nalaaminaynaa dhegaysta idiin sheegay sagaalka dabaco ilaan baa ka muuqanaysaa ay maqlaysaa sida hadda ay tahay ogaanka ay hadda leedahay nin fiican oo isu soo asagaysa soo bixiyey oo al-shabaab meesha ka tirtiray oo shaqo badan qabtay oo la yidhaahdo maxay ahayd carabe la yidhaahdo yaa meesha hayaa annaga waxay noo noqon doontaa system dowladda ay og tahay maqaalahooda ay si fiican u helayaan mishaarkooda ay si fiican u helayaan haddii loo kordhinayo ay ka tirtirayaan nabadgelya xumada gobolka raytoo ka jirto maxaada al-shabaab iyo wax lamid iyo qurun oo dhan baa maanta ku soo gaban karaa meelaha waad maqashaan sooma marka ma maqasheen in la yidhahda daawud amxaar war ma maqasheen in la yidhahda daawud amxaar yuu ahaa awliyahan baa sooma soo ciidan mu haysan ciidanka macawliyahan baa wax lagu dhimay soo awliyahan laguma difaacayni kana wuxuu noqon doonaa ku awliyahan lagu difaacayo oo waxba loogu dhimeynin wanaagee loo kordhinaya ana waan garab istaagaya been baa laydin sheegay haddii lagu yidhaahday faarax baa ku duulayaa wiilashaas awliyahan kuma duulayo waxbaan usii kordhinayaa
wax badan baan nooga shaqaynayaa wanaag badan hadday haysanin baan u soo hagaajinayaa iyagana qola nadaamsan bay noqon doonaan sidaan hadda ay tahay oo maaragtay ka fada ma noqon doonto meel fog bayna gaari doonaan shaqada ay hayaanna waan ku faraxsannahay ammaanka deegaankii u noqonayaa wayna difaacayaan waad maqasheen soo ma maadaama soomaaliya ay iska kutursan tahay oo nin kasta iska soo geli karo ciidanka dawladdana aan lagu halleyn karin mashaqooyinkasayto maaragtay dabagalka inay samayn karaan ayagaa noo samayn doona dabagalka nidaamkoodana waan hagaajin doonaa insha allah waxay ku saabsan tacliim cunug dambe oo geli doona jaamacadda oo lagu weydin doona lacag ma jiri doona إن شاء الله بإذن الله الباري نبغى شهر هورتا مالكم قرطة شغالين اللي يرضوا وانو شغالين هنا UN كم بان شغالين هنا وان حقا نغا كقادنا بحد حقي حد مهينو بري هورا وان سوء شني قلال بهدنا حقي وكلمي وروح عد سما بري أسيتو بريشي قلت لها يا قبلها لو قصتي يا سما هذا قولك هذا ونوعد كالي سوما marka taasna waad ogaanaysaan insha allah waxaa lagu yidhi raamkaawoy nooci dhegaysta ee maqashaan dhallinyarada cidda oo tacliinta leh saa idiin sheegay 9% ninkii wax la soo qabtay jeebkiisa ka bixinayey wax badan ka soo gaaray oo soor ku bixiyay baan aniga ahaa insha allah ilaahayna waa ku mahadinayaa inuu fursadda ay siiyey abaalna midna kama sugahayo waajib aniga alla oo gutay aan gutay buu ahaa min maqlaysaan haddana waxaa lagu yidhi carruur baa jirtaa tacliin fiican haysato b minus iyo c plus iyo c star ay haystaan oo jaamacada u keen sooma ii keena warqadaha gabaa carruurta iyada gabadhii kor agala hadlaysa markii ma arkeen ورا إجابة إيه كان والله حد ويلكي يقبضني وحي هيبو هذا اللي جاهز ورا المخزن صومه أنا كل تعليمت هذا وحوي كقبنيا وإذا تنالي شغال للهادية إن شاء الله هدوء كونت كوني دين تودي تكون أنفع بين رمضان وأنا أقول ماشي محلويان بولا مسيري يا بولا حياة الله أنت مسيري محلوك مسيري يا كم مسيري والله مسير بدل ما ماشي أوري بس أسوي وحنا يا ما يتعكف تجروي أنا كل مسيري كل حير وعكش شغال دورة ماركة يسام بالك أوي بالك وين ماركة يا صعد وين الماء أودو شاي ماء هذا بيها قبلها وهي قرانقري وسوما قرانقري ودم الله ما قرانقري دورة السنة يبرك كل هذا وحاربنا قبرك استينا يقول والله مغشان قدام أيوة حرنا أيوة وحسن وصالوا إلى الله يروق عماك كذا مرة والوايد قد يسومه قدام حرنا مكان رجال يصرحان اللي يسيب عنه قال له أقول لك كيرو قرانقري ولا قرانقري وحويان ما أقول اللي عليه ربنا أيه والله مغشان صومه biyaha waxaan rabaa inaan soo wada geliyo meeshan oo dhan oo meel kasta piping aan sameeyo tuulo kasta cowlahan uu leeyahay gabar kasta ay shaw siisato hala yaroo lacag laga qaado markay bisha dhamaato warwar cad soo maha mid ayade waan soo gelin doonaa insha allah ya ragga hadda laga labadaba u guursanaya markay gabadhii daasho oo habeen kasta warka sida ay tiraan mid kale raashan soo ma والله ما يغش ما يغشان أنا هدينا شيء دراية شري ما قرنا يسان شري ما قبيل بولي مدين بولي بولي شري أموريان دول كده سوا إلهي كفو لأن أبيد يكدر لي فارح ما شفتها يستعرك فارح معك أصلا إيمانك الله كانت كبيتها من أهل وريقي وين من نظامه هذا الكيم بدليل محل سودي لنا يفوز يدير هذه أو دولتي شان بين بنت على السوق اللي له وريقة هينا
حاويان وهذا وبين يكذاي ninka markuu dadkiisa u shaqeynayo wuxuu qabanayo waa nin ku xisaabtamaya aakhire inay jirto ilaahayna janno ka kasban rabo ma garalkay nin muslim oo islaamnimo sheeganayo kuma degdegayo nifaaq iyo maxay ahayd iyo fidna iyo xooladadeed iyo dhiigdadeedna kuma degdegayo sabiila gala marka waxaa weeyaan وين حنا ماسك قبلين ونسكت هنا سما وحلا وحي الله قف اللحظة يشان يكسر قالنا لحد ما لو قل دونا أو دولة دو قل دونتا ليستي أنا وحالي ليستي ديالي حطبو صفة ما ركتين وكانوا وإذا كان ركتين وقاتين رجع دمر أقول ما السلسلة منه قبلها عمر ما هيستان لكن أن قبيل السلسلة منه وعروض الله يوم تكسر هي عضو كان معي كل وكان يدير كان كيف عاد على ليدر معك تلفون نمبر كام وحصلنا مسوكين ما بس أنا واحد ما يورا أبوك عنده كويس ما كنت كان ما بقول حاجة واسكولها كل حاجة يقول مسير بودن بيسي ولا توفيق أنا وانتقينا كونا أو رجال هذه واحدة هذه تصنع ولا توفيق أنا وانتقي دونا أو أنا ولي جاي عمال ملق ضمين عندي عن كل شيء سهل كده وعيلان ملق ضمين هاي ملق ضمين ذيك ولا ما غشان ولا ما غشان وعقبت كان الله تعالى آخر هبت محل ما جوجي هبت نعمل الجوا صما فكا وحويان أنا أقول خلاص الشنو ويعمل الكلام فكرة هل يراهدو عد كان عليه السي هذا وإذا كنت صما وإيش يا سماح إلى تطمع هي مرة إلى وديه تطلع بالله بكريت وحور مقاول السماح بقرا عديد تطلع وإذا كنت صما hogaamiye daacado u hiiliya shacabkayo halyay qaran baa taho dadkaaga ku haway hogaamiye daacado u hiiliya shacabkayo halyay qaran baa taho dadkaaga ku haway bulshadu kuma huri karto ubal reer gaarisba dhammaan ku helaano ogow horumarkaaga suga bulshadu kuma huri karto ubal reer gaarisba dhammaan ku helaano ogow horumarkaaga suga جودنا تنربنا حلكودوبة تنربنا إنا نهك تنربنا هرمود نقو تنربنا أبدا ساري أنتقني مروح الكفارحو أبدا ساري أنتقني مروح الكفارحو جودنا تنربنا الكود هو تنربنا إنا نهك تنربنا هرمود نقو تنربنا هبدا ساري أنتقني مروح الكفارحو هبدا ساري أنتقني مروح الكفارحو